militariga Soomaaliya ayaa hirta waabariya saaka urun qaasaray xadka dalka Kenya iyagoo ku gaashaamada baabadka culus ee dagaalku ay ka mid yihiin taangiyada qafilan madaafiicda goobta ee Yurub hubka gurgurta ee loo yaqaan kaarayaasha. Soomaaliya ayaa ciidankeeda heegan gelisay kadib markii ay Kenya ku dhawaaqday in qayb ka mid ah badda Soomaaliya iyadu leedahay isla markaasna hanjabaado kulul ay bariyay ugu dambeysay ka soo yeereysay. Waxa badaha Soomaaliya dul sabeynaya maraakiibta dagaalka noocyo kala duwan waxaana bariga Afrika badweynta Indian Ocean lagu rakibay gantaalada intermediate loo yaqaan ridada dhexe kuwaas oo degan baasaha ka dhiga karaya caasimada Kenya marka loo fiiriyo masaafada dhuleed ee labada dal isku jiraan. Qaramada Midoobay ayaa arrintan kulan degdeg ah ka yeelanaysa midowga Afrikana waxa uu ku baaqaya in si shuruud la'aan miiska wada hadalka loo yimaado. dowladaha Mareykanka iyo Ruushka ayaa xaaladan ka soo saxaafadeed ka soo saaray xiisadan ka hor bariga Afrika. Mareykanku waxa ku baaqay in xaaladda la dejiyo halka Ruushka iyo Iiraan ay tibaaxayaan inay Soomaaliya xaq u leedahay inay ciideeda iyo badeeda difaacato. Si kastaba ha ahaatee waxa jira ismarinimo u dhaxeeya madaxda sare ee dalka Soomaaliya kaas oo ku saabsan sidii loo wajihi lahaa xaaladan. Madaxweynaha ayaa qabay inaysan ciidanka xabadda ku horeyn isla markaasna ay difaacooda adkeystaan halka saraakiisha da'da yar ee wasaaradda gaashaandhigga fadhiya ay ku tooqayaan in 70 gantaal oo cruise missiles lagu garaaco madaxtooyada Uhuru Kenyatta. maraakiibta dagaalka nooceeda ee sikirtawana la geeyo goobta lagu murusan yahay iyo Yurub arxan diyaarada ah si ay Kenya u quusato.